halkani waa toga dhex mara magaalada Burco waxaana togani ku soo rogmaday daad xoog leh kaasi oo sababay in khasaare kooban soo gaadho biriishada magaalada Burco xooga daadka ayaa gaadhay heer ay biyuhu dusha ka maraan biriishada waxaanay taasi sababtay in la hakiyo isu socodka gaadiidka iyadoo laga baqayo khasaare ballaaran biriishkani waa biriishka cagta ay dawladda hoose dhistay dhawaan waxaana uu daadku qaaday qaybo ka mid ah shabakada sare ee biriishkaasi sidoo kalena daadkani waxa uu waxyeeleeyay xayndaabka loo dhigay labada biriish ee weyn ee magaalada Burco maayirka degmada Burco ayaa ka hadlay khasaaraha uu soo gaarsiiyay daadkani biriishada waxa soo dhacay tog dheer loo dhintiray baa soo dhacay biyaha maanta maraya biyo la qiyaasi karayo ma biriishada qaar dushay ka mareen qaarna saaqiyadaha uga soo galeen qaarna waa sigeen saddexda biriishba mid walba khasaare ay gaarsiiyeen khasaaraha laakiin marka inta noo muuqanayso baan ka warbixin karnaa bridge-kaas deera bridge la yiraahdo waxa uu qaaday wax allaale wixii ciidda u celin jiray oo dhan iyo wixii ciidda ka celin jiray imika billarski baa cidla taagan waxa kale oo iyaduna mushkilad kale ku sii noqotay hal beebeyntu soo qaaday oo qolof beebeyntu soo qaaday ayuu billarski dhex geliyay taasina waxay ku noqotay iyaduna dhaawac kale oo sii qoday dhulka bridge-kan yar ee foot bridge-ka Maceel Gooni bridge-kan isagana hareeraha wixii loogu talagalay inay daadka iyo ciidda ka ilaaliyaan oo dhan ayuu qaaday waxa kale oo uu qaaday muxuu haayay kaabadihii dibadda saaraa iyo dhulkii loogu talagalay in dadku ay maraan kaabadihii iyo birihii saaraa ee loogu talagalay dadka inay ka celiyaan si aanay ugu dhicin toga kuwaana uu qaaday oo waliba qayb ahaan buu qaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala baan u mahadnaqaynaa waa khasaare sahlan bridge-kan aan joogno waa bridge-kii Chinaha ah asagana khasaaraha imika noo muuqanaya waxa weeye meeshii loogu talagalay ciidda inay u celiso billarska bridge-ku ku taagan yahay oo uu u qoday si qeyr lacaali u qoday aanu ka baqaynina inuu qaado wuxuu qaaday ciid celiyaashii gidaaradii waaweyn ee 5 mitir ahaa ayuu iyagana barhkood qaaday barhna soo dumiyey barhna imika laalaadaan marka ciidamada bilayska iyo nabad sugidda wadooyinka ayaa ku hawlanaa joojinta gaadiidka iyo kala kaxaynta bulshada kadib markii ay ku soo urureen biriishada waanu joojinay waayo waxa weeye dadkii baaba arkaysaa meel laga maraa aan la helayn waxna aan maqlayn oon ka dhaqaaqayn markaa in baabuurta la joojiyo waayo waxa weeye wuxuu kordhinayaa culays buu kordhinayaa markaa sidaasaanu ku joojinay dhankiisa injineer Faarax Xuseen oo ah injineerkii dhisay qaybo ka mid ah biriishadani ayaa ka hadlay khasaarahani isnima dumin oo sida imika ay tahay wax dumay ma jiraan laakiin dhaawacyo koonayaasha iyo dhinacyada iyo kuwii difaaca ahaa ayaa wax noqday waxa imika inagu soo socoto hadaan waxba laga qaban in ciid reebka uu rido gidaarada ciid reebka uu rido togu biyuhu ridaan dabeedna kaabaduhu meel qaawanaysa soo taagaan si kastaba ha ahaatee biyahani ayaa noqonaya biyihii ugu badnaa ee sanadihii u dambeeyay soo mara toga dhex mara bartamaha magaalada Burco ayaan le Cabdullaahi Jaamac SBC TV magaalada Burco.